السلام عليكم دمان أصحابك حري يوتيوب كنا وأنا وأولاد كين كذا مسؤول هذا ميل والبا دون كابو جوكتا وحرجينا إن عافمات قبتان سيدو كلا أنا وإذن عافمات قبا باش برواقو وقتي راح أكو خذنا أدينا سيدو كلا سيدا سكورجينا وورانك سيدو كذا أوفيشال هذاك عشوب تي يوتيوب channel كان بليز سبسكرايب صار سي أنا وجوهر ناتدو أو نقطة دوت كان وجوهر متكمدة سيدو كلا هذا كل عشبين وصو هرتي إن كومنتي صورتي لايك تانو تابتي سيدو كلام شير هذه فيديو كان انت هذا اسمه سوا ما سنتاي وحرنا انا سمينه فيديو رياكشن كان انه سمينا انا حماسيديسو حمبارسين هاي ام حماسيديسو وتام waxaanu ku soo qaadanayna alfanaan sharma boy xidiga muqdisho walayo waagoor wuxuu waali jiray shacabka oo kaliya iyo dhalinyarada balse hadda wuxuu bilaabay inuu dawladda dadkii iyo wasiirada inuu soo jiidasho ku bilaabo warkiyaan idinku tahay alfanaan sharma boy iyo goodax barre oo kulmay maxaa dhaxmaray maxay ku wada hadleen intaba inuu soo daawano soo saara waxyar داوشو عن بسم الله الرحمن الرحيم داود يال waxaan joognaa xafiiska wasiirkeena waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre fanaankeena Sharma Boy agaasimayaasha iyo mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada waadi salaan dhamaantiina waa wasiirkii ugu horeeyay azumaad gaar ah u sameeyay fanaanka Sharma Boy oo والله إنا بين إذن شيئين شرم بوي واتجي شرم بوي واتجي واتلعب صدام كان حسن طب لكن وحكسو جمانتا هذا المهارة أجبرنا وحرجينا إنه هما وزيرك وشدًا دولة فكرجينا إنا كسب هذا أفكيسة أوكي بس وينا وياهن دم بدنا يردا ماذا دارينا يي وزير كسر halkan waxa waaye waa channelada Durdur Media iyo Bu'aale Media xafiiska joogna sharaf gaar ah noo tahay wasiir marka loo dadka waxa waxay niid gelinayaan qof aan loo tagi karin qof xirxiran qofka marka uu tagayso oo dad badan in loo soo maro sababaysa laakiin ugu faraxsanahay sida maanta noo soo dhaweysay sharafta iyo qadarinta aan noo sameysay aad waxa warta marka uu reyso aan ka mahad celinayaa ajiibida uu xaliyayga yar dhalinyarada artistaha Soomaaliyeed soo baxayo uu ajiibay markaan fariin u faray inaan qolano Sharma Boy ma codsaday inuu Goodax Barre la kulmo mise Sharma Boy la codsaday in Goodax Barre uu la kulmo macnaha waxa ka wada Goodax Barre ma codsaday inuu Sharma Boy la kulmo mise Sharma Boy codsaday inuu Goodax Barre la kulmo saas ka wada بس Sharma Boy la codsaday in la kulmo abti hore u socodkii goolna ku leeyahay saa soo qaadaysid kuwa hadda hore oo soo qaado ku ka xamaasad badan soo qaad oo ku faraxsana aan guushan ay gaartay kullee aan ahaantay aan sii soconayna أنا مركز مثلا وزارة waxbarashada ujeedada aan Sharma u martiqaaday waxay ahayd marka uu horeyso inaan horta barto nin dhalinyaro oo artista oo wanaagsan oo hal abuur leh oo saameyn badan ku leh bulshada Soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada inuu yahay horta inaan dadka ka barto aan isbarano horta been ma Sharma Boy saameyn waa leeyahay qof bulshada laga dhex yaqaan waa daraad ma ana wada maray xaafad dhexdeeda Kismaayo dhexdeeda soo socda waxa arkay inuu geeriis daadiisa marka ugu badan tahay waxa 13 sano jir 13 sano jir waxa arkay la kuwa kale u dheelay marka xulee ma taqaan qofta soo karoos marka Sharma Boy ilmaha yariiska yaqaano abti guushaasna adaa gaari hambal yaa kulay hore u socdo inuu sii soconina marka labaad in aan uga hiiliyo muxuu ahaa warka suuqa loo geliyay oo ah inuu sabab u ahaa imtixaanaadkii dhacay Sharma mas'uulka ahaa taas fikir xun buu ahaa fiican ma ahayn waxayna ahayd mid runtii dhaawici karto qof dhalinyaro oo yani ma taqaanaa sida Sharma Boy oo kale in muxuu ahaa runtii la dhaawaco mustaqbalkiisa oo la yiraahdo imtixaankii la dhacay asaas sabab ah dad siyaasiyiin ah waxa sameeyeen
muxuu ahaa marka taasna inaan uga hiiliyo oo aan sheego inuusan waxaas uusan saameyn ku lahayn balse dhinaca kale laga yaabo inuu saameyn ku yeesho muxuu ahaa ardayga inuu niyadiisa wanaagsanaado oo mataqaanaa uu hagaago taasna qasdiga ugu weyn ay ahayd qasdiga kale waxaa weeye in asiga laftirkiisa aan ku baraarujinno in muxuu ahaa saameyntiisa xoogga leh waddanka uga faa'iideeyo ubadka dhallinyarada yar uga faa'iideeyo in ay waxbarashada ahmiyad weyn leedahay uu ku baraarujiyo sax waaye fanaanku waxaa waaye badanaa hadda dadka hadalka wax sheegidda iyo waxaas iyo ma qaadanayo badanaa horta dadka wax loo sheego badanaa horta qof kaste wax haddii loo sheego dadka ma qaataan ilaa ay kuwa qaarkood moogiin laakiinse dadku waxay badanaa dhegeystaan muusiga dad waxaa jira horta maalinkii haddaysan muusig dhegeysan dhibaataba ayaga dhan wax kala dareemayaan marka waxaa jira horta si run haddii loo hadlo waxaa jira dad muusig wax ku fahmi marka waxaa laga yaabaa sidaas inuu ka wado muusiga loogu sheegay inay waxbarashada macaan tahay waxaas inuu ka wado amaleyna sidoo asigaba uu arday wanaagsan uu soo ahaa mataqaanaa amaba hadda uu yahay in muxuu ahaa uu inta kalena uu saameyn ku yeesho in iskuulaadkii ku mintidaan waxbarashada ku mintidaan intaana inaan muxuu ahaa asigana aan ku baraarujinno xasan toob والله حسن توب كعما انتو سائسو قشته بسمعنا كسوارت فيديو انتو سعودنا حسن توب في الرا حسن توب كباشال كعبو وزيركو اركي بس هو حسن توب ندم اذا بقوا فريستي شدنا عشان وركيد وإلا حسن توب جددا انتاس mar kale waxaan ka mahad celinayaa muxuu ahaa sida wanaagsan uu soo ajiibay inaan kulanno aadan uga mahad celinaya adigana sidoo kale barasho wanaagsan aadan kaaga mahad celinaya inaan muxuu ahaa bahda sugaanta iyo samayso dhinacay wasaaradda ka mid yihiin sidaad la socotid muxuu ahaa hiddaha iyo dhaqanka muxuu ahaa annaga wakiil uga ah waddanka marka bah yar oo gees naga jirto oo mararka qaarkood ku dhex qaldamo fanka fanaaniinta heesidu iyo fikir curintu waa kala laba qaanad ay ku kala jiraan marka in bahdii isku soo maaxday aan nahayne aad aan ugu faraxsanahay sharma barasho wanaagsan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay sharafeena maanta waxaa la joognaa waxaa waaye waxaan soconno aan raacno maanta waxaa la joognaa waxaa waaye xaqiiqatan wasiirka waxbarashada aan joognaa kulley farxada ay tahay aniga gaar ah oo khaasatan ah inuu ii yeero wasiirka waxbarashada maanta aan garab taagnahay aniga asxaabteedaba kulley dhammaan faniska Sharma Boy haddii la dhaho asi laftirkiisa fanis uu leeyahay anoo dhan fanisaan leenahay taageero iyo inta baa leeyahay dhammaan waxaan leenahay haddii hala ogaada waxaa waaye ani iyo goodax bare dad saaxiiba inaan nahay marka laga soo tago Sharma Boy isku baashaalaya kala mid kale ay weydiiyay goodax bare fanis baleeyay goodax bare dhalinyaro u maleeyaa inay taageerayso ani aadii marka ka hadlo ilaa nin imtixaan kabla dhiilo dhalinyarada dhan أو لقى عرّب هذا قد عبر تغيير ولي هكيابن المي حتى فلوق حتى كان نقطة تعاق مرقد مان فيسبوك يسا قد عبر إنه تغيير لي يكل فيسبوك نوغو سوقرا وحي قد عبر فيسبوك وافكي قلي كومنتي نوغو سوقرا قد عبر وحي تغيير انسيسو عنا هادي waxaa mas'uuliyiin kale meesha way joogaan kuma dheeraanay hadalka waan ka baxaa assalaamu calaykum farxada ay tahay marka ugu horeyso wasiirka iyo hadallo badan oo la sheegay in halkan lagu soo daboolo dhalinyaro badan ay arkaan farxadda iyo bogaadinta waxay tahay wasiir ma ahan markii ugu horeysay oo wasiir iyo fanaan ay kulmaan laakiin waa wasiirkii ugu horeeyay
si qalbi furan intuu uba cofanaan dhaho hadda ii imow xafiiskiisana ku qaabil hambalyaa ku leenahay shaqada iyo dhalinyarada iyo waxbarashada iyo sidaa u haysana waa kaaga mahad celinayna waxaan siinayaa hambalyo agaasima waa u hambalyaynaya wasiirkayga iyo Sharma Boy inay maanta maaragtay halkan ku kulmaan caadiyan waxaan sameynaa wasaarad ahaan inaanu maaragtay dhiirigelino daayarta halabuur kale waa waxyaalahan ka dhaxalay maaragtay hogaaminta wasiirka si loo helo maaragtay curiyayaal iyo dad maaragtay waxbarashada ku dhiirigeliya maaragtay ardayda maanta halkan waxa dood baa dhex martay wasiirka iyo sheekooyin dheer wasiirku waxa uu uga warramay si uu maaragtay xog u siiyo maaha si uu uga codsado inuu heesa dambe soo qaado oo uu ku ammaanayo sida ay dadka qaar sameeyaan wasaaradda iyo maaragtay iyo wasiirada laakiin wuxuu sameynayay inuu maaragtay xog dheeraada siiyo si uu berri ka maalin halabuurkiisa ugu maaragtay ugu dhiso ninkan oraa Soomaali wuxuu dhahdaa afeefo hor lahow ama adkaysi dambe lahow macnaha wuxuu taagan yahay hadii la cala Sharma Boy hees uu dawladda ku amaana iyo goodax bari iyo haduu soo qaado Sharma Boy waxa u maleynaa ama iga qoraadalkeen in waxa laga yaabaa inuu Sharma Boy soo qaado goodax bari hees inuu hees goodax bari soo qaado waa laga yaabaa ani fikir ahaanteed marka ka hadlo marka iyo wasaaradda iyo waxbarashada iyo dawladda hees ku amaana hadii soo baxdo wuxuu taagan yahay macnaha anaga Sharma Boy hees dawladda soo qaad maanan dhihin laakiinse in la kulanno ugu wacna oo kaliya tahay kale ninkan afeefo diibanaya oo arki doonaa wasi soconina maaragtay isla markaana uu maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ku dhiirigeliyo maaragtay halabuurka maaragtay waxbarashada iyo dhaqanka wanaagsan maadaama aanu nahay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare inaan maaragtay mas'uuliyad baan naga saaran inaan maaragtay ardayda iyo maaragtay dhalinyarada in lagu dhiirigeliyo inay maaragtay caadaystaan dhaqankeennii iyo maaragtay sidii ay bulshadeenu soo nooleed halabuurku ka mid yahay Soomaalida waxa lagu yaqaanay haday tahay xagga ganacsiga haday tahay xagga fanka haday tahay xagga maaragtay sheekooyinka haday tahay xagga riwaayadaha haday tahay xagga heesaha dad maaragtay aad ugu wanaagsan xagga maaragtay halabuurnimadaas waa u hambalay muhiimada videoga ma ahan ina warkan kala sidhiisano bal muhiimada videoga balse waxay ahayd muhiimada videoga inuu daawano Sharma Boy iyo goodax baro hadlaayo waan aragteen goodax baro wuxuu ku yiri Sharma Boy waa ku faraxsan inuu iga ajiibo ina uu waco u yimaado goodax baro ku faraxsan annagana waa kula faraxsanahay Sharma Boy maadaama wasiirka waxbarashada Soomaaliya la kulantay goodax bare waxaan ku leenahay hadeen nahay Kazama family or Kazama team keep going bro halka ka sii wad joojinin hadda goodax baro kaliya ku wacay ilaa Donald Trump kaaga wacay joojin marka ninka xasta ma taa ku dhacay asoo baashin inta aliga way waxay noo balanaa videoga xiga adigoo caafimaad qaba iyo sidoo kale anigoo caafimaad qaba hada YouTube channel kan ku cusubtaa please subscribe saar si aan u noqoto dadka nagu xiran والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.